faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan oo ahaa gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa maanta waxaa lagu weeraray kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa midowga Yurub gaar ahaan dowladda Talyaaniga, waxaana la sheegay in qaraxaas uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dad goobjoogayaal ayaa dalsan waxay u sheegeen in qaraxaasi in ka badan 3 ruux ay ku geeriyoodeen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana dhaawac la geeyay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. qarax ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa Burundi oo ka mid ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. waa gaar ahaan agagaarka waa aridda laga galo degmada Daynile ee gobolka Banaadir. laamaha amniga Soomaaliyana weli wax faahfaahin qaraxaas kama bixin, inta badan jugtiisana waxaa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.